soo gabagabowday iyagana waxaynu leenahay waan idin hambaleynaynaa waanu idin ducaynaynaa dadkii halkan ka hadlayo dhammaantood way idin duceeyeen waxaanu leenahay markaa mustaqbal wanaagsan baynu ilaahay idinka baryaynaa qarankiinana inaad u shaqaysaan baa lagama maarmaana waxaan leenahay markaa su'aal ay dadku had iyo jeer isweydiiyaano markaa waxay yidhaahdaan maxay dowladda maxay u shaqan weyday maxaa loo shaqaalayn waaye su-aashaasi su-aal idin naasibta aqoonta aad barateen levelkii dadka la yidhaahdo intellectualiska gasheen waxaa ka soo gudubteen levelkii dadkii aan aqoon-yahanka ahayn waxaa ka soo gudubteen levelkii jahligaad ka soo gudubteen dadkii aqoon-yahankaabaa gasheen ninkii dowladda dalka Mareykanka xukumi jiray 60 ilaa 63 ee Kennedy la odhan jiray ayaa ardayda iyo dhalinyarada wuxuu ugu maahmaahay ha isweydiinin wuxuu dalkaagu kuu qabanayo laakiin waxaad isweydiisaa adigu dalkaaga waxaad u qabanayso ardaydan jaamacadaha ka baxay aqoonta ay barteen cilmiga ay soo barteen jaamacadaheena jaamacad aan lahayn laboratories ma leh jaamacadaheena waxay sameeyaan research fara badan marka idinkoo cilmiga bartay dabaqaya isticmaalaya waxa la rabaa in hal abuur keentaan hal abuurka iyo cilmiga ayaa wax dharan aad iyo aad baan idinku hambaleynaynaa adna aadan qolada dadka hadal hayaa horta sida hadarta oo qabyatira u sheegay adna aadan wixii ay shaqaysatay hadday imika inoo soo bilowdo waa qof iyada oo yar oo idinka yar shaqo bilowday ilaa iyo intii ay shaqadaa wadayna ama farmasiyay lahayd ama shaqooyin international oo hay'adaha adduunyada ugu waaweyn ayay ka soo shaqaysay horta waxa laaliya waxay lahayd baana may dhigan meel la may gelinine dadweynaha iyo shicibka dib inoo gelisayo cusubtalka iyo jaamacadaasay gashay deeso taajirad way ahaateen imika aynu nidhaahno sida tijaarteena albaabkeeda aynu taagtaaganoo shahaadayno maxaynu ugu abaalgudaynaa waxaynu ugu abaalgudaynaa bini'aadmigan aadamahan ilaahay abuuray ciddii aan taariikh lahayn adduunyadan way hadhaa way luntaa way baabaadaa qaran walba iyo dal walba maxaan ku dhahdaayey waxaa lagu maamulaa taariikhdii halgankii waxa laaliyo wixii uu lahaa innaga taariikhdeennu inta badan ma badna cabdilaahi darawal cabdilaahi xuseen iimaan arrinkii hadalladii hadda halgankeedii waa maxaan ku dhahdaayey waa taariikh waa arrin suntan oo maxaa ka mid ah dee dalkan imika xaragadan iyo quruxdan iyo hablahan halkan dahabka wada qalalaxda leeyahay iyo waxaas miyay shalita jireen suudi iyo daadiisa imika halkan fadhida hargeysa miyay jireen boorama miyay jireen burca miyay jireen magaalo kasta miyay jireen waxa dembi ahayd go-ashaalka ah in go-ashaala la gashadaa dembi bay ahayd waxaa la odhan jiray qurmista iyo snmt iyo qudhunqadhaadhka iyo waxaasay ka tirsayiin marka dhallinyaradiinan waxay u baahan tahay dalka South Africa Nelson Mandela markii la soo daayay 27 sanadood uu xidhnaa daadiina yaryar ee soo baxday ee berigii hore aan maxaan ku idhaahday xorriyadda lahayn waxaa loo bixiyay born free generation dadkii xorriyadda ku dhashay waxa dowladda Ingiriiska waxay naga bixisay 2004 inaynu tagno doorashadii South Africa marka halkan waxa ka tagay commissionkii doorashada saddexdii xisbi qaran ee markaa jiray udub iyo ucid iyo kulmiye waxa ka tagay ururkan maxaan ku dhahday haweenkeen neegaad baa ka tagay waxa ka tagay qolada saxaafadda doorashadii waanu tagnay magaaladii Nelson Mandela ku dhashay ee
rogmashada ugu badan ee ay ka dhaceen ayaanu galay polling stationkii markaanu ka soo baxnay ayaa islaam baanu la kulanay islaantii baan anigu su'aal weydiiyay waxaan ku yidhi yaad u codaynaysaa markaasay waxay ugu tiri intay qaylisay bay ugu tiri of course ANC waxaanu u codaynaynaa ANC markaasaan ku yidhi waxaad ugu codaynaysaa midabka iyo madowga soo maaha may bay tiri markaasaan waay hadda maxaad ugu codaynaysaa waxay tiri halkaa aynu imika taagannahay dariiqaa marka aan ka gudbaayo gaadhi iskamaan eegi jirin ey laygu soo daayo iyo cunaan ka baqi jiray bay tiri maanta ey ka baqi maayo haraarahu baan bidixdii midig baan eegayaayoo maxaan ku dhahdaa gaadhi baan iska eegayaa somaliland waxa weeye waxa laynaga burburinayo raggii halkan ka qaylinayay qaylada ay dhigayaan masiibooyinka laynala rabaa waxa weeye waxaa la diidan yahay nabadgelyadan nidaamkan dowladnimadan ayaa la diidan yahay imikaad ka soo qaadaa wasaaradda tacliinta ee Soomaaliya iyo wasaaradda tacliinta ee Somaliland maxaa miisaaniyadda ku baxday gaaladu intay bixiso iyo inaku intaynu bixino waxa la diidan yahay ayadoo ninayna caawin doorashada berigii hore laynaga caawinay ilaa Axmed Siilaanyo cid inagama caawiso boqolkiiba boqol inaga doorashadeena imika bixina ayaga waa la gaarsiin kari laayahay doorasho waa run arrinta hadda halkan laydinka farayay shicibkan dhalinyaradan iyo dadkan inay xorriyadan iyo nabadgelyadan ay dalkan ay ilaaliyaan oo waliba ciidanka wasiirka dakhliga iyo taliyaha ciidanka booliiska waxaan labadaba u soo bandhigayaa adna aadan haddii la soo hadal qaado qaranka Soomaaliland waa la soo hadal qaaday adna waa in la ilaaliyaa Soomaha qarannimada waa inaan ku ilaalinaa sida madaxweynaha iyo wasiirada iyo adna waa in leedahay mar haddii laba soo hadal qaaday waa in adna la ilaaliyaa marka waxaynu u baahannahay qarannimadaynu ilaashanaynaa dhallinyaradeenana waxaynu leenahay waxa laydinku baray qarannimada laydinku baray qoladnimo cidna waxba laguma barin qolayaan laydinku hanuunsan qaranka wax laydinku baray idinkuna waa in idin qaranka ilaalisaan waan idin hambaleynaynaa waxaan leenahay ilaahay mustaqbalka ha idin wanaajiyo waalidkii idinku soo tabcayna waxaynu leenahay ilaahay waalid khayr qaba ha ka yeelo idinkana ubadka ku soo tacabteen waa in maxaan ku dhahday aydun aad iyo aad u ilaalisaan waliba anigu hal shayna waan idinka degayaa dhallinyaradiina maanta jaamacadda ka baxday ee halkaa fadhida kuwa kale jaamacadaha ka baxay waalidka waxa idin soo baray ma aha hantiilayaal ma wada aha ganacsadayaal ma wada aha dad lacag le ma aha qaar badan baa dadka dayartii ay wax soo bareen laba inkaarood ma idinku dhacayaan hadda hagaagsanaan weydaan professorada halkaa fadhiya ee habeenkiina idin soo jeegi jiray duruusta idin diyaarin jiray maalintiina waxa idin dhigi jiray idinku indhuhu maalin walba sida oo inta uga dhacaysay iyo waalidkii idinku soo tabcay labadaba inkaartooda way idinku dhacaysaa hadda dad wanaagsan noqon weydaan ilaahay inkaartooda ha idin weydaariyo idinkana dad wanaagsan ha idinka dhigo qarankana u shaqeeya idinkuna naftiina shaqeeya cilmiga sii kororsada aad iyo aad baa adna waan garanaynaa qarankan waxaad gelisay adna waan garanaynaa tacabka ay gelisay adna waa qof tamar badan leh hadda jaamacadda iyo cusbitalka intan way ka shaqaysaa wasaaradda khaarijiga way la shaqaysaa madaxtooyada Somaliland way la shaqaysaa qof intaa kari karaaba inagumaba jiro marka waxaynu leenahay Allah inoo barakeeyo iyadana ilaahay cimriga ha u dheereeyo maanta waa tan inoo sheegtay 3 casho ka hor bay u dabaaldegtay maalintii ay dhalatay waa qof ilbaxoo waxa haysataa iyadu maalintii dhalatay waxeediiba way haysataa marka waxaan leenahay Allah ku barakeeyo Allah ku gargaaro qarankana taariikhdaada intaada waan ku haynaa idinkana Allah idin barakeeyo xukuumadda hablaha nagala fadhiya iyo axsaabtii intuba way salaaman yihiin wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh